الله أكبر الله أكبر. waxaa saaka si weyn looga xusay magaalada Buuhoodle maalinta weyn ee Ciidul Adha maalintaasi oo munaasabado kala duwan oo lagu maamuusayo ay ka dhacayeen dhammaan badaafaha caalamka muslimiintu degto ayaa saaka waxaa dadweyne tiro badan oo isugu jira rag iyo dumarba ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium Football iyadoo halkaasi ay ku tukadeen labadii ragcadood ee salaada ciida dadweynahan goobtaasi isugu soo baxay saaka oo jawigoodu aad u deganaa isla markaasina wajiyadooda ay ka muuqanaysay farxad iyo reyn ayaa maraan mikrofoonka la dhex qaadnay waxaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan maalintan barakaysan ee ciida. maalinka waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto ummadda reer Buuhoodle ummadda Soomaaliyeed intaba waa salaamada muslimiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay ilaahay mowqifadiina ha iswaafajiyo. ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair dhammaan waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan ciideeda Allah khayr iyo bashbash lagu gaarsiiyo dhammaan waxaan ka salaamayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay عيد الأضحى عيد الكبرى عيد مبارك وحكاهم كسلام يا إلهي قرابتنا والله عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام يا جماعة المسلمين الإسلام كمال كسوي شوقان وحن الله عيد مبارك وحكاهم كسلام يا إلهي يا قرابتنا يا سيدي ونحسن يجيبون مجالات Buuhoodle. dhanka kalena daqiiqada kadib ayaa waxaa gebi ahaanba isbedelay dareenka guud ee magaalada Buuhoodle waxaana si aad looga dareemayay magaalada saacada kadib sansaan colaadeed kadib markii uu dagaal xoogani ka bilowday balliga Kalshaale oo dhanka waqooyi ka saaran magaalada Buuhoodle halkaasi oo ka bilowday dagaal beeleed oo ku saabsan dhul daaqsimeed ay deegaameyn isku dayeen inay ka sameeyaan qaar ka mid ah beelaha deegaamadan hawdka. ismaandhaafka balligaasi oo muddooyinkanba ka taagnaa deegaamadan ayaa maanta si toos ah faraha uga sii baxay kadib markii dirir xoogani ay dhex martay labada beelood ee isku maandhaafsan sheegashada balliga Kalshaale oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Buuhoodle. dagaal qaraadha ayaa ku dhex maray labada beelood ee isku haysta balligan maanta waxaana ilaa iyo haatan inta la og yahay dagaalkaasi uu khasaare geystay dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca 5 kale oo ka soo jeeda labadii beelood ee dirirtu ay ku dhex martay balliga Kalshaale. ma jirto ilaa iyo haatan waxna badayn ah oo laga dhex sameeyay labadaasi beelood walaal way culamaa u diinka iyo odayaasha deegaanku ay isku dayeen inay qaboojiyaan kal hore xiisadaasi colaadeed iyadoo ay isafgarad la'aan ku soo dhamaatay wada hadallo hore oo ay isku dayeen inay sameeyaan waxgaradka iyo culimada deegaankani kadib markii ay ku adkaysatay mid ka mid ah beelihii balligan isku haystay qoditaanka baraaga laga qodayay balligan oo ay waxgaradku soo jeediyeen in la joojiyo inkasta oo saacadahan dambe uu jawiga magaalada Buuhoodle ka soo degayo sidii hore ayaa haddana waxaa laga dareemayaa sansaan colaadeed iyadoo aad arkayso gaadiidka xamuulka oo guraya gurmadka iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah dhaawacii dagaalkaasi saaka ku waxyeeloobay la soo gaarsiiyay